Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bulshada sharafta mudan ee ku xidhan Channelka Maalmaal soo dhowaada. Waa xalqadii labaad ee taxanaheennii Dabin yaa dilay Salma ee daawasho wacan. Ismaaciil kursigiisii kursi ag yaalay ayaan salka la helay. Maxamuud Carab oo horey u fadhiisan jiray kursigaas, Ismaaciil baa ku qanciyey inuu raadsado boos kale. Saaxiibkay waa nin sheeko badan oo shabeelnaagooda. Markiiba wuxuu kala baray gabdhaha galaaska dhigta, kuwa ugu fudud ee la shukaasan karo iyo kuwa ugu dhibka badan marka ay ragla hawsawga noqoto. Saddex gabdhood oo show sheeko u socotay ay ka qoslinayso ayaa iyaga oo qosolkii sii dhammaysanaya, welina afka toos aan isugu qabanin mar fasalka soo wada galay. Midii ugu sokaysay maaha ee labadii kale siday u ekaayeenba ma xasuusto. Indhahaygu iyaga way ka arag la'aayeen. Gabadh dhex yar oo sin weyn, gabadh aan buurnaan lagu sheegin xabad kuusan, riyo mooye toos baad u arkaysaa, marna isma lahayn. Gabadhuba hadday meelahaas u dhuuban tahay, anigu shaqo kuma lihi. Indho waaweyn oo dhinacyada u jeexanna way lahayd, oo marba gabadhu haddii ay indho weyn tahay, wejigeeda wax kale kama dayo. Niyahow weli aanan kugu daalinayna waxa aan ku soo koobay sifaadka gabadhaas meeriskan cali cilmi afyare. Indhahoo muraayada afkoo dhuxulo maygaag ah, midabka shamsadoo soo baxdiyo moodda galabeeda, meeshaan ka eegaba yartani way macaan tahay. Saaxiib, gabadhaas waxaa la yidhaahdaa Faa'iiso Maxamuud Shuuriye. Waxaa dhalay taliyaha booliska degmada waa beri. Aad iskuma sii naqaano. Korkaasumaan iska salaana. Ismaaciil ayaa intaas iga tibahsiiyey. Magaca taliyahaas markii ugu horreysay aan maqlo maaha. Laakiin ayaan ku maqlay talow. Saldhiggii naloo geeyey weydiimaha dhimashadii Salma ayuu joogay taliyuhu. Joogay maaha isagaabana wareysanayay. Nin oday ah oo degenaan iyo xasilooni ka muuqato ayuu ahaa. Niyahow, gabadhaas waxaan u malaynayaa inay islaanteeda noqon doonto, ayaan ku odhi. Wuu qoslay Ismaaciil. Kolkaas ayuu yidhi, maxaad ku keentay arrinkaas saaxiib? Waxba saaxiib, waan niyeystay uun. Islaantaas si aan isku baranno, ii sheeg. Saaxiib, aqoon buuran uma lihi. Se gabadh ay saaxiiba yihiin ayaan ka codsanayaa inay ku barto. Inay barto xataa muhiim ma ahan, nambarkeedoo keliya hana siiso. Maalinkaygii koowaad ee jaamacadda dhowr sadar oo buug aan ku xarxariiqay mooyaane waxbarasho naf leh iguma soo garoorin. Bannaanka jaamacadda ayaan isla taaganahay Ismaaciil. Halkaas ayaannu nambarada ku kala qaadanaynaa. Waxaan isku tilmaamaynaa guryaha aanu u kala hoyano. Annaga oo kala jiciiro rabna ayay Maymuun noo timid. Waraa Ismaaciil haye, Maymuun ayaa tidhi. Fiicana baayo, sidee tahay? Ismaaciil baa ku warceliyey. Oo waad istaqaanaan miyaa? Aniga ayaa la soo booday. Saaxiib si fiican baan isku naqaanaa Maymuun. Waxay ka mid tahay gabdhaha aanu afaara qabiilka isku xidhiidhino. Inkasta oo iyadu lahjadii ay ka tagtay. Adigu miyaad istaqaanaan Maymuun? Ismaaciil baa igu yidhi. War waabayn adeertay mid waalan tahay. Gurigooda ayaaban joogaa. Ayaan ugu jawaabay. Hayehe, idinkana maanta leema isbarateen mise? Maymuun ayaa iyaduna na weydiisay. Ninkan waannu isla soo jabnay Maymuunay. Waxa uu ahaa ninka ugu dhibaatada badnaa dugsiga. Maalin buu aniga oo cashar iska diyaarsanaya ii yimid. Wuxuu igu yidhi, afkaaga jaad baa ku yaalla ee miyaad qayishaa? Markaasaan intaan naxay baan la soo booday. Been badanidaa waryaa, afkayga xaguu jaad kaga yaallaa? Aawe jaadku, intaan afka kala qaaday. Mar allaala markii aan afka kala qaaday ayuu dhagax yar oo gacanta ku haystay uu afka iigu shubaaliyey. Dalaq! Dhuunta intuu istaagay ayaan saacad ku qaacay. Maalinkaa macallinku siduu u garaacayay oogadiisu wada dhiig ayay noqotay. Waa Ismaaciil oo carruurnimadii aanu isla soo marnay uga sheekaynaya Maymuun. Abo si xun iskuu galay. Maymuun oo qosol la hadli kari la ayaa intaa ku tidhi. Sheekadii iyo kaftakii markii aanu dhammaysanay ee aanu damacsannahay in aanu kala tagno ayuu Ismaaciil hoos iila hadlay. Waxa uu ii sheegay gabadhii ay saaxiibadda ahaayeen Faa'iiso ee uu doonayay inuu nambarka nooga soo qaado inay tahayba Maymuun. Halkaas fursad iska nool baan ka arkooday. Guriga markii aanu tagnayba anigoo aan qadin ayaan qolkayga ugu yeedhay Maymuun. Waxba umaan qadin. Araar dheerna maan samaynin. Waxaan si toos isu qabta ugu sheegay saaxiibteed Faa'iiso inaan ka helay doonayana inaan barto. Waxaan u sii raaciyay inaan kuba riyooday gabadhaas oo naagteeda noqotay. Dhowr jeer ayay iga hubsatay inay dhab iga tahay waxa aan sheegayo. Haada markii aan uga kici waayey ayay hadalkan igu tidhi. Abow, gabadhan xiriir hore oo lahayd aad dhib badan ka soo gaadhay. Nin oo waxay jeclaatay shirkad ka shaqeeyo. Muddo badan markii ay sheekaysanayeen ma ku dhihi karo abbaayo aan iskhudbasaraysanno. Ayada marka hore waa ka diiday. Asaga ma ka harin, waa soo taagan yahay le. Wuxuu ku saraystay inuu aabbaheed ka baqaayo oo hadhow marka ay iskhudbasaraystaan as u sheegi doona aabbaheed. Iyadoo miskiinta waaye waa ka aqbashay. Abow hal sano dhan aas ka haystay. Kabacdi meel aas ka baxay aaba la waayay. Maalmahan waxa la sheegayay Sweden inaas tahriib ku galay. Way la hadashay. Abba iga wareejino aniga waxay ku meel gaar lees ahaa ma dhihi karo. Marka nin dhan ma maqli karto hadda.
dad badan oo muuqooda sare ay kula eg tahay inay farxad iyo reynreyn labisan yihiin ayaa se tiiraanyo iyo murugo laabtoodu dabooshay. rag maxaa qabsaday maxamedow waa qarsanayaaye ayaa sheekh abshir bacde laga wariyey. ragga waa uu ku hadal qabsadee labada jinsiba way u siman yihiin dhibta, oo weliba waxa ay si buuran u saamayn og tahay dhediga. waana sababta marka uu gabadh dhib aysan filan uga yimaado nin aysan ka filaynin, ragga oo dhan ay uga boodo oo dhaar ay isugu jeexdo lab dambe in aysan macaana odhanin. faa'iise waxa ku dhacay wax suuban maaha, niyadjab badanna way ka dhaxashay. haddana in la daweeyo ayay mudan tahay sida bukaanada kale. muddo badan ayaa ka soo wareegay maalintii maymuun ay iga faallootay arrinka faa'iiso. dhowr bilood dheh waxaan qaatay in aanan ku degdegin la sheekaysigeeda oo igaba aqbali mayso haddee. dhowr bilood ayaannu jaamacaddaas u soo wada kalahayn. marar badan ayaan si kedis ah laba eray oo salaan iyo dan markaas jirta aan dhaafisnayn isku weydaarsanin. hadda ugu yaraan korkaas sare oo iga akhriday faa'iiso. inkastoo aan ismaaciil saaxiib la ahay, haddana marka lagu jiro gudaha galaaska iyo bannaankaba waxa aan u muujiyaa faa'iiso inaan ahay nin deggan oo ixtiraam badan. mar aan is idhi hadda waxa ay jeclaan lahayd inaad u sheekayso ayaan ku dhardhaaray. jaamacadda bannaankeeda ayaan fursad ay keligeed tahay ku helay. sidee tahay walaal faa'iise ayaan ku idhi anigoo ismiskiininaya. abba waa cartan fiicana sidee tahay adiga ayay iigu warcelisay iyada oo laga dareemayo danayn. waa la nabdoon yahay abbaayo, alla mahadin baa lagu jiraa. maasha allah. soo xaafadda uma sii socotid mise qof baad dhowraysaa? maya cidna ma sugaynin. maa ku sii dhaweeyde haye mahadsanid. dhowr daqiiqo ayaanu isgarab soconnay anigoo aan waxba odhan marka laga reebo iska jir baabuurka. hoos ayaan fiirinayaa oo iyada eegmo uma dhammayn karo. sidaad maanta ugu kansho heshay in aad ugu kansho heliba mar kale ma ogide ka faa'iidaysto ayay qalbaddu i tidhi. day faa'iiso soo tuf warka habiqine. ma baqayo ee si aan kuugu sheego ayaan weysanahay. anigaadba iga cabsiisay maxaad soo wadaa? wax kale ma aha ee haddii aad awooddo waxaan jeclaan lahaa caawa inaannu wada cashayno. cuntada waan jeclahay niyahow, laakiin nasiib xumo habeen bixid lay ima ogola. habeen keliya cunno lama cuno. haddii aad jeceshahay galabtaba ka waran. nin hadhaaya ma tihi. ahey maxaa jira oo aad doonaysaa inaannu iska aragno? kadis weeye galabta ayaan lagu waayin. haye halkaan isugu nimaadnaa. karmal ka waran. war dhammaaday. nambarkaaga wuu iga baxay. nambarkayga awalba kuma siinine hadda qoro. gurigeeda oo iyaduna aan ka fogayn aagga banaadir ayaan geeyey. soo noqoshadii xaafadda kadib waxaan toos u galay lebis iyo dhar feeraysasho. waxaan ku dhalandhoolay magaalada qorax kulaylkii aad ogeydeen. saan hadba subarmarket u tegayay oo aan uga raadinayay hadiyad aan siiyo. markii aan waayey waxaan u soo iibsho ayaan ubaxyo guduud ah u soo gaday. ubaxyadii aniga oo la soo socda ayay misna ila qumanaan weyday in aan qof weyngeeda uun siiyo. maxaan haddaa soo iibiyaa? ka warran bacweyne ma u soo gadaa? ka warran haddaan kaba hadid uga dhigo? bahalladii islaamuhu isku qurxin jireen ee meekaabka la odhan jiray ka warran. sidaan u fakarayay oo maskaxda aan u tuujinayay ugu dambayn waxaa igu soo dhacday filimaan dhowr ah oo aan daawaday. atooruhu waxa uu gabadha u soo iibinayaa ubaxyo guduud ah iyo farraanti dahab ama luula. markaas ayuu inta uu jilba joogsado uu ka codsanayaa guur. dukaanka dahabka lagu iibiyo ayaan islaan qaraabada ah oo halkaa la iigu sheegay aan ka soo gatay farraanti dahaba. casarkii markii aan sidaas u salaamanaqsaday waxaan sii istaagay hoteelkii aan ku ballansanay. dadka oo idil waxay dhuganayaan ubaxyadan aan gacanta ku sido. daymo ashqaraar ayay igu fiirinayaan. nin la sito miyaa waxaas dareemayaba? xoogaa baan daacsaday faa'iiso. taleefankii baan la soo baxay si aan u waco. looma baahna inaan waco hadda. waaba tan iridda maqaaxida ka soo gashay. isku days madow iyo kaba dhaadheer oo cad ayay la soo gashay goobtii. iyada oo awalba qurux iyo qaadirku u dhammeeyey ayay misna kulankeenii si gooni ah isugu soo qoraysay. ay soo gashayba waanu istaagay. ubaxii iyo hadiddii waxay iigu hoos qarsan yihiin kursiga. ilaa iyo intay fadhiisanaysay waan taagnaa. salaan iyo soo dhoweyn kadib waxa aan bilaabay inaan labiskeeda iyo quruxdeeda ammaano. filibaan hadda ka hor waxaan ka daawaday gabadha oo atooraha ku xanaaqday keliya in uusan waxba ka odhan labiskeeda iyo quruxdeeda. tiyaysan kugu dhicin baan islahaa. markaas ayaan ammaan ila fogaan gaadhay ugu qubeeyey. yaa salaam waad iga yaabsanaysaa faa'iisoy. maxaa dhacay cartan? adiga oo awalba qurux u dhashay ayaad galabta si waali ah u sii dhalaalaysaa. bahasha bes iga dheh. runtii aad ayaad qurux badan tahay. marka si ka dabacsan sidii hore ayaan odhi mahadsanid. iyaduna si ka dabacsan sidii hore ayay iigu jawaabtay. haye maxaad cunaysaa faa'iiso? aniga cabitaanun baan cabbayaa. mar dhow baan soo qadeeyey. anigu maan soo qadayn ee waxaan cunno ii sheeg. mise bariis iyo hilib baynu dalbannaa. bariis saacan weligay ma cunin widaayow. ka waran waayahay haddaynu biise dalbanno. iyadaa la qaatay. xabad biisada weyn ah iyo cabitaan baanu dalbannay. intay noo maqnayd waxa aan si guud uga sheekaysanay jaamacadda iyo ardayda. marba qof baan soo hadal qaadnaa.
sida ay baashu u socotay ayaa waxay ku timid saaxiibka Ismaaciil. Cartana waa cajiib bay tiri. Ninkaas saaxiibkaaga ah oo aad mar walba wada socotaan iyo adiga laba dhaqan oo aan shaqo isku lahayn baad kala leedihiin. Ninkaas maanta oo dhan fowdo iyo qosol iyo gabadh ceedsasho ayuu ku jira. Adna aamusane ayaa tahay inta aan ka arkay. Halkaas waxay iga shaqaysay falsafadii aan iskaga gadayay Faa'iiso. Inta ay sheegtayba aniga ayaa uga daran Ismaaciil. Haddiise ay ka daboolan tahay waa khayr. Waxaa naloo keenay biisadii iyo cabitaankii oo wada socda. Axbaar baanu nimcadaas daaqnay. Hadda waxaa la joogaa xilligii aan u warrami lahaa, xilligii aan u sheegi lahaa wixii aan ugu yeedhay, xilligii aan qalbigayga kala hadli lahaa, xilligii aan ka codsan lahaa inay garabkayga noqoto, xilligii aan ka dhiqi lahaa dhibtii ay soo martay. Kursiga ayaan hore u soo sikiyey. Miiskii oo markaa la nadiifiyey ayaan labada gacmood saartay. Waxa aan u jeediyey khudbad dheer oo aan uga sheekaynayo waxa ay qalbadaydu isugu warrantay. Waxaan ku idhi, Faa'iiso, aniga ayaa kuu wacay. Okay, taas aad bawda og tahay. Se waxa aan kuugu yeedhay waa macquul inaad qiyaasayso. Inaadan dareensanayna waa la arkaa. Faa'iiso, anigu waan ku jecelahay. Haa, aad baan kuu jecelahay weliba. Kulankiisii koowaad buu jacayl kula degdegay hays odhan. Maalinkii ugu horreysay ee jaamacadda ayaan ku arkooday. Maalinkaa waxa aan si guud uga helay qaabka aad u tahalay muuqaal ahaan. Waxaa ii dhinnayd inaan ogaado dhaqan ahaan sida aad tahay. Dhaqankaaga wax badan baan kor ka diraasay. Dad badan oo aan ka waraystayna way ii sheegeen. Dabci ahaan iyo muuqaal ahaan labadaba hadda waan kugu qanaa. Waan ogahay inaad dhibaatooyin badan soo martay. Waan ogahay in inta jacayl iyo doog lagu tusiyey uur ku taallo iyo jiilaal lagaga soo tegey. Waan ogahay ilaa cad ku hungowday in lagu tilmaamay. Waan ogahay biyo xareed lagugu sheegay inay wiyeer kugu noqdeen. Xabiib qof aad u haysatay inuu xaasid kugu noqday warkeeda waan hayaa. Qof aad jeclaatay iga jaaho inuu ku yidhi waan la socdaa. Gallad waxaad u haysatay laba calooliyow inay kugu noqotay waan ogahay. Qaali, xaalkaaga waxa iigu laaban lama arko. waxaas oo dhan waxaan aaminsanahay ninkii kaa daweyn lahaa inaan ahay haddii aad fursaddan ii siiso oo aad xidhiirkan iga aqbasho. Agtayda cidlo iyo dayac ku arki maysid. Gaajo iyo diihaanla agagaarkaaga ku arki maysid. Haddii aan kugu fara adeego ka warran ood adiguna xaas ii ahaato. Faa'iisay gacaliso dabcigayga haddii aan sadar iyo laba kaaga aqriyo waan dabeecad kululahay balse nin kibir iyo isaweyne dadku ay ku sheegaan ma ihi. Aan dabeecad kululaadee nin waanada jaalkiisa iyo jeexiisa ka dhegala ma ihi. nin dhaqankiisu sirgaxan yahay ma ihi. nin adiga ku jecel oo ku dhegaysanaya baan ahay. nin ishiisa iyo laabtiisaba aad buuxisay baan ahay. ninku jecel baan ahay Faa'iisay. saadaashayda inaysan habaabin baan rajaynaya. salaadow iga samir in aanad ii odhan doonin ayaan rajaynaya. waan ku faraxsanahay inaad noloshayda hore wax ka soo gaartay. waxa aan filayaa Maymuun inay kuu sheegtay. taa marka laga yimaado diyaar baan u ahay inaad iga ilmo dhammaysto oo inta nolosha ka laaban aan wehel isku noqono. diyaar baan u ahay inaan xidhiir guul iyo guur ku dhammaada aan wada bilowno. diyaar baan u ahay inaan qoys iyo reer wada yagleeno. waanse baqayaa cartanow. sida aad u hadal macaan tahay oo kale ayuu u hadal macaanaa. sidaad hadda iigu muujinaysa wanaaggan faraha badan oo kale ayuu iigu muujin jiray. qof fiican kama sooci aqaan qof xun muuqa hore. aniga oo dareen igu jiro in aan ku aqbalo mooyee si aan kala hadh lahayn isuguma kaa dhiibi karo. Faa'iiso ayaa sidaas uga dareen celisay hadalkaygii. hadal quruxsan oo laakiin laga daba keenay quruxda hadalka ayuu kala dhantaalaa. Faa'iiso, waan dareensanahay inaad ka baqayso mar kale in laguu hodo tabtii hore lagugu hoday oo kale. waxaan aaminsanahay adiga oo laabtaada ii wada furay haddana inaad gaashaanla yuurar iyo feejignaan ku jiri karto. wixii kuu suuban bogaadi, wixii aan kuu suubanayna ka bood. xidhiirka inta aad samaynayso haddii aanad ku raaxaysanaynin dhib unbaad ka dhaxlaysaa. teeda kale si aad uga kabsato xanuunka waa inaad daawada sida ay tahay aad u qaadataa ayaan ku idhi. waan kula qaatay cartan si aan iskala reeb lahayn ayaan hadda ugu qanacsanahay inaan xidhiir samayno. farxad baan furka tuuran gaadhay. goobta dhexdeeda inaan ku soo boodo oo hab siiyo ayaan damcay. dibnaha iyo daamankaba inaan ka dhunkado ayaan rabooday. inaan isku ladhaba mooyee qaab kale oo aan ugu mahadnaqo ayaan kasi waayey. ubixii guduudnaa ayaan ku idhi horta carafso. fargalkiina fartaada ku ogow. wax ay tidhaahdaba laga madoobay. afkeedii xarafna waa uu kari waayey. erayo ay ku cabirto waxa ay maskaxdeedu soo wado ayay garan weyday. markii ay caashaqa aqbalaysay kamaan dareemin. haddase raboodkaygii aan waxba dhaamin amaba ka badan ayaan arkayaa. inta iga guddoontay bay yaa allah mar isaga soo tuftay. mahadsanid. kulankii karmal mid barakaysan dheh. gurigeedii ayaan geeyey. gurigeeda aan geeyeyba waxa aan horay ka wacay Ismaaciil si aan farxadda ula wadaago. cabbaar ayaan iska daldalmayay. sidii nin aroos ah ayaan dubaaqayga lagu arkaynin farxadii qosol mooyaane. saaxiib wanaagsan sidii laga filayay farxaddii buu ila dareemay oo uu ila dabaaldegay Ismaaciil. tale waxa igu siiyey inaan horeba ka doonto oo aanan waxba la sugin inta ay jaamacaddu ka idlaanayso. tale isha laga riday ayay ila koonaatay.